weligaa waxaad ilaalisaa naftaadii, waayo adiga ayaa sabab u noqon kartaa in naftaadii wadada saxda ay marto ama wadada khaldan ay marto. waxaan ku soo gudbinayaa 3 qodob oo bini'aadamka noloshiisa bedelayo. qodobkayga koowaad maanta aan jeclaystay inaan ku soo gudbiyo, qof baa noloshiisa imtixaan kala kulmaya, haddana wuu samrayaa. samarkii uu u samraayay ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u furayaa faraj. taasi waxay ku noqoni cashir uu ka barta noloshiisa. waxaa ogaataa mar kastoo ifka waxaa jooga qof kaa liito meesha aad taagan tahay. marka waxaa laga rabaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku shukriso adigoo dhoola cadeynaya. qodobkayga labaad aan jeclaystay maanta inaan ku soo gudbiyo, qof murugaysan. murugta haddaa ka qorqaado Ilaahay subxaanahu wa tacaala adina murugtaada ayuu ka qorqaadayaa. taasi waxay noqonaysaa qofku noloshiisii inuu bedelo. qodobkayga 3aad maanta aan jeclaystay inaan ku soo gudbiyo, qof uu jeclaa ayaa noloshiisa ka baxaya. marnaba ha u oynin qof qalbigaaga dhaawacay, kaliya u dhoola cadee. waxaana ku dhahdaa waa ku mahadsan tahay sida aad fursadda iigu siisay inaan raadiyo qof adiga kaa fiican, qof qalbigayga ilaaliya, qof noloshayda ii ilaaliya,